fadlan taabo linkiga hoose subscribe dheh like siina share garee si saaxiibo badan ay uga faa'iidaan waad maasan tahay applicationka FaceAapp ayaa dunida ku qabsaday duufaano waxaana la bilaabay isticmaalkiisa sanadii 2017 barnaamijku wuxuu dhawaan ku raaxaystay caanimo balaaran sababtoo ah inta badan dadka caanka ah ee Hollywoodka ayaa ku dhajiyay sawiradooda majaajilada ah iyaga oo ku daabacay internetka FaceAapp wuxuu adeegsadaa shabakada Unreal tiknoolajiyada Sirdoonka ee aan dabiiciga ahayn si dadka loogu bedelo wajiyada kala duwan ee miraayasha adeegsadayaashu si fudud ayay sawirkooda uga soo qaataan ama ugu sawiraan taleefankooda isla markaana algoritmiska appka ayaa nasta waxa uu naftaada ka dhigi karayaa mid yar ama mid weyn sidoo kale waxaad ku bedeli kartaa jinsigaaga ama waxaad bedeli kartaa muuqaalkaaga shaandhaynta gabowga ayaa si fudud ugu caansan iyadoo Drake, Hilary Duff, Jordan Ramsey iyo LeBron James ay ka mid ahaayeen dadkii caanka ahaa ee muujiyay wajiyadooda mustaqbalka ee warbaahinta bulshada toddobaadkii la soo dhaafay barnaamijku waxa uu ku jiray ciwaanada dhammaan shabakadaha kala duwan ee ka hadla waxyaabaha qaldan iyadoo indha-indheeyaasha ay si aad ah u tilmaameen in shuruudaha adeegsiga appkan ay siinayso shirkadda iska leh appkan ee waddanka Ruushka waxyaabo waali ah oo ay qayb ka tahay wireless lab waa ruqsad aad u ballaaran oo caalami ah ka oo xilli cimri dheer ku muujin karaya in sawirkaaga aad isticmaashid marka la soo koobo markaad isqorto waad adeegsato barnaamijkan shirkadda waxay sameyn kartaa wax badan oo ay jeceshahay oo ku saabsan sawirkaaga waxay ku dhajin kartaa nooc walba waji ah oo ay iyagu u baahan yihiin internetka ayayna sidee doonaan ugu isticmaali karaan mana ahan dhammaan waxyaabahan kuba sharci ahi dabcan sida khibradu ay si sax ah u tilmaameen tani uma badna in ay dhacdo balse tan kale ee Ruushku uu ku leeyahay xogta sawirka waxay noqotay horumarinta aqoonsiga ee wajiga lambarka wireless lab ayaa sidoo kale si cad u sheegaya in sawirada badankooda la tirtiri karo 28 saacadood gudahood markii la soo diro ama macluumaadkani lagu rido dalka Ruushkana uu gaaro laakiin waxay si ku meel gaar ah u kaydsanayaan shirkadana qaybteeda Mareykan qatare kale oo qarsoon ayaa jira kuwa oo aysan daabicin shirkadan balse dad badani ay si aad ah indhaha ugu hayaan wax badan oo ku saabsan shirkadan ayaa jira si kastaba ha noqotee waa xaddiga xaaladaha kale ee qalqalgelinaya ee isticmaalayaasha iyagoo aan is ogeyn ay isku diiwaangeliyay shirkadan shuruudaha adeegsiga waxay ka kooban yihiin heshiis sharci ahaan ku habboon laakiin cilmi baaris ayaa sheegaysa in gabi ahaanba qofna uusan weligiis aqrinin dabeecadaha ganaaxa ee shirkadan tani waa walwal marka la eego qaybta 15aad ee shuruudaha FaceAapp oo dhan laakiin waxay ka mamnuucaysaa in aad tilaabo sharci ah ka qaado shirkadda waxaa lagu ogol yahay oo kaliya inaad xareyso sheegashooyinka yaryar ilaa iyo xad mooyaane ama aad raadiso amro maxkamadeed oo gaar ah haddii kale waxaa laga rabaa inaad xaliso dhammaan khilaafaadka sharciyeed iyadoo loo marayo garqaadid qarsoodi ah oo lagu qabto dalka Mareykanka gaar ahaan California nasiib wanaagse waad ka bixi kartaa qodobadan laakiin kaliya waxaad haysataa 30 maalmood laga bilaabo diiwaangelintaada si aad taas u samayso taasi waxay la micno tahay in ka badan 100 milyan ee hadda ku yacday isticmaalka adeegan ay goordhow ku soo wada biireen kuwa dhawaanahan iibsaday haybi saacad way quseeyaan waad ka bixi kartaa adoo u diraya ogeysiis qoraal ah waa inaad ku dartaa magacaaga oo buuxo oo muujinaya ujeedadaada cad ee ah in aad ka baxayso dhexdhexaadinta haddii aad tan samayso sharciga California ee caadiga ahi waa uu ku habboon yahay oo waxaad haysataa xuquuqdaadii sharciga ahayd ee aad ku dacweyn lahayd haddii aad rabto haddii aad kala soo degtay wajiga FaceAapp usbuucii la soo dhaaf oo ay ku saleysan tahay Australia waxaad u baahnaan doontaa inaad si dhaqso leh wax uga qabato maadaama waraaqahaasi ay qaadan doonaan ilaa 14 maalmood oo shaqo ah si Ruushku u gaaro boostada caalamiga ahi qaybta 17aad ee shuruudaha ayaa sidoo kale qusaysa arrimo dhowr ah qodobkani wuxuu siinayaa wireless lab
xaqa uu u leeyahay inuu wax ka bedelo shuruudaha waqti kaste iyo inuu shirkadda ama shirkadda iyada ay isku dayi karto inay ogeysiiso dadka isticmaala laakiin si kale oo sahlan ay ugu diri doontaa shuruudaha cusboonaysiinta qadka tooska ayayna u isticmaashaa inta badan fikrad ahaan ma jiraan wax ka hor istaagaya shirkadda inay si lama filaan ah u soo rog khidmad adeegsi ah habka kaliya ee lagu ogaanayo waxay noqon kartaa in si joogto ah loo hubiyo shuruudaha adeegsiga casriyeynta ama koontadaada ku xiran xisaabta bankiga ee aad isticmaasho qaybta 10aad sidoo kale waxay mudan tahay in la xuso iyaduna waxay cadeynaysaa in aad caymi doontid difaaci doontid oo aadan waxyeelo ku fiirsan doonin FaceAapp saraakiisha agaasimayaasha wakiilada iyo kuwa ka howlgalayaba shaqaalaha iyo qof walba oo uu quseeyo ayaad u doodi doontaa qasaaraha mas'uuliyadeed ee shirkadda ayaad sidoo kale qayb ka qaadan kartaa isticmaalka appka awgii asal ahaan kama dacweyn kartid wixii qasaare ah ama dhaawac ah ee aad kala kulanto shirkaddan sida sumcad ama waxyeelo ceeb ku keeni kara oo aad kala kulantay wireless labka oo ah adiga oo dhidiga in sawirkaaga loo isticmaalo qaab laba ama adiga oo laba oo sawirkaaga loo isticmaalay dhidig waxay sidoo kale ka dhigan tahay inaad ogolaatay inaad bixiso dhammaan khidmadaha sharciga ee sheegashada dhinac saddexaadka ee ka soo horjeeda FaceAapp oo ka soo ifbaxaya adeegsigaaga appka wali waad dhiibanaysaa dhammaan xakameynta talaabooyinka sharciga ah laakiin ma ku muuqanayaan markaad isticmaalayso adiga FaceAapp waa mid aan la dafiri karin haddana waa applicationka ugu caansan ee Australia ka hor Instagram iyo YouTube soo dejinta appkan ee mobilada iPhone-ka ee Mareykan ayaa kordhay 561% bishii la soo dhaafay barnaamij walba oo ciyaar ah oo haddana faafinaya farxadda ayaa noqon kara wax fiican waa muhiim si kastaba ha noqotee in adeegsadayaashu ay ogaadaan waxay iska qorayaan haddii kale in badan oo xuquuqdooda sharciga ayaa la baabi'in doonaa iyo soo bandhigidooda sharciyadeed waana mid aan caadi ahayn iyaduna sida haddii maqaarka uu duuduubmo iyo tirma ciroodku haddaysan ahayn kuwa adiga kuu fiican Makian Basaro macalinka sharciga ee jaamacadda Adelaide ayaa isaguna sidoo kale ku tilmaamay in kani uu yahay qayb ka mid ah sharci aamusinta dunida application loo isticmaalo fadlan taabo linkiga hoose subscribe leh like sina share garee si saaxiibo badan ay uga faa'iidaan waad maasan tahay